Assalaamu calaykum. Waxaa jira talooyin iyo aragtiyo badan oo ku saabsan sida uu qofku ku yeelan karo caado akhris, kuwaas oo qaarna isku soo dhowdhow yihiin, qaarna ay kala dheer yihiin. Haddii aynu bilowno tixidda talooyinka iyo aragtiyaha uu qofku ku yeelan karo caadada akhriska, kuwaas oo ay ku taliyaan dadka ku xeesha dheer akhriska. Aragtida koowaad waxa weeye in aad muddo 5 daqiiqo ah wax akhrido maalin kasta, adiga oo wadaya jeer aad ka gaadhayso 41 casho oo isku xiga. Aragtidani waxa ay leedahay 41 casho kadib waxa khasab ah in ay naftaadu la qabsato oo ay joojin weydo akhriska. Waxa la mid ah caado kasta oo aad rabto in aad nafta ku barbaariso. Aragtidani waxa ay leedahay umar wadada 5 daqiiqo ee la wadayo muddada 41 casho ah. Aragtida labaad waxa weeye in aad dareento muhiimadda uu akhrisku leeyahay oo aad dhidibada u adkayso aaminidaada qofeed ee ku aadan waxtarka iyo dheefta akhriska. Waayo waxa ay ku leeyihiin mar kasta oo aad ogaato muhiimadda uu akhrisku leeyahay waa mar kasta oo aad ku mamanaato akhriska oo aad yeelato caado akhris, taas oo ay adag tahay iska daynteedu. Aragtida saddexaad in aad diyaarsato wax kasta oo kugu riixaya wax akhriska, sida in aad qorto dhiganayaasha aad jeceshahay akhriskood, in aad dhiganaha aad rabto akhriskiisa dhigto meel aad arkayso oo had iyo goor ku dhow. Haddii aad mobilka ama kombiyuutarka ka akhriyeysana aad soo saarato fooda hore ee muraayadda mobilka ama kombiyuutarka. Aragtida afraad in aad akhriska ka dhigto mid soo jiidasho leh, sida in aad wax ka akhrido dhib ku haysata ama waxyaabo aad jeceshahay, in aad isku wado akhriska iyo xilliyada aad nasanayso, sida xilliga shaaha ama sharaabka oo kale, in aad samaysato saaxiib haddaad inan tahay ama saaxiibad haddii aad inan tahay, si aad isugu caawisaan akhriska. Marka aad dhigano kasta dhammaysana aad gorfaysaan oo ka doodaan. Aragtida shanaad in aad ka dhigto akhriska mid fudud, sida in aad maalimaha hore akhrido wax yar maalin kasta, sida in aad maalin kasta akhrido 4 ama 5 bog, haddana toddobaadka ku xiga maalinkii aad akhrido 7 bog, sida aad u wado kolba. Aragtida lixaad in aad had iyo goor eegto quruxda nolosha iyo wax soo saarka dadka wax akhriya. Marka aad aragto qof waddanka aad ku dhalatay u dhashay, magaalada aad ku dhaqan tahayna isna kugula dhaqan, oo haddii uu doono aad isku meel wax ku soo barateen oo ka mid ah inta farakutiriska ah ee ay bulshadu ku aamintay in ay dhisaan iyaga maankooda iyo maskaxdooda. Waxaa khasab ah in aad adna isweydiinayso, marka maxaa aniga iga reebay khayr qabayaasha bulshadooda badbaadadeeda halganka ugu jira. Aragtida toddobaad in aad dhiganaha aad akhriskiiska rabtid sidato, oo haddii aad goobta aad u hooyato aad ka baxdo uu kula socdo, xataa haddaad ballan leedahay. Sababta oo ah waxa aad helaysaa xilli aanad waxaynin, dibadda goobtii aad u hooyan jirtayna waad joogtaa. Maxaad samayn markaa? Miyaad iska fadhiyi adiga oo aan waxba qabanayn? Soo taasi ma aha noloshaadii iyo xilligaagii ahaa waxa ugu qaalisan ee hantidaada ah ee aad haysatay oo aad dayacayso. Intaa aad kanshada firaaqada hayso ka faa'iidayso oo wax akhri, haba yaraado waxa aad akhriyaysaa. Tusaale, ballan baad lahayd, kadibna xilligii ballanka ayaa aad goobtii oo cidlo ah timi, waad iska fadhiisatay. 20 daqiiqo kadib waxa kuu yimi dadkii aad ballanka la lahayd. Muddadaa dhammayd 40 daqiiqo ee aad iska fadhiday, ka waran haddaad dhigana sidan lahayd oo aad akhriday 10 bog, haddii aad akhriska ku gaabisana 5 bog. miyaanay faa'iido noloshaada wax ka beddasha ahaateen? haa dabcan. waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tegaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmayno. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.